السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدانا قلنا أصحابي سودة دوابة واو انطلق عباد واو أصحابتي واو منين كان على السوق يا منين كان حرني ما كموقته guriyaan yaa wadani yaa ka muuqo meeshaan hadda waa qolkii yaraayo farxiya floko dhahan maanta waxaan ku dhahay guriga saanaan ka dhigay happy independence day saana u kala kicay ma fahanti maasha allah calankan qofkii noo dooqay caadi ma wallah wax qurux badan oo noo dooqay wax aad iyo aad u qurux badan oo noo dooqay wuxuu noo dooqay cirku wax ka dooqay ma fahanti qof meel dheer ka fikiraayo waaye ama koox ahaadaan ama qof ah soo hindiso laakiin maasha allah meel dheer wax ka dooqay والله ما شاء الله قولي سانا كدقنا حرني ka muuqata waa beautiful place meeshaan waa kaasa hidiya dhaqankeeni afrikaanka lagu yaqaan dheeliheeni alaabteena taalo markaas soo gudubnana meeshaasna deesaasa ka dhigay anigana waa kaasa calankeyga ay xiran guriga maanta waa wada calan carada dhan calanka babanaye wuu calanka babanaye ma fahanteen calankan oo babanayo يا أصحابي سنة كسودي عرض ما شاء الله باش أنا عارفة سنة علن كيوي كاتنا أيضا بلو يعدان وحكو ما شاء الله ويسكو إيمانين فاتد ما شاء الله إن أصحابتي ذا جعلهاي إن شاء الله فديقان إذن تصايا waxa ugu talagalnay maanta oo maalintii dabaaldega Soomaaliya waxa ugu talagalnay oo arkayna fadhigan oo isla arkayna degdegina isla joogno xawaada janaalkan ku cusubtay please waxaana sameynaysaa subscribe like and share haddaan la joogi jirtana deena la joogo waa mahadsanto yaa qaxwada soo qaado caawde si loo banaan bax familkii iga maqan oo ogtiin dada iga maqan yaa dhikiliye askil kaftamaya umadiya haddan iyo anaga dhandee wax yar ka bacdi dham waay asxaabi markaan nalka ka soo damiyay qolkeena oo asna saan oo noqday sidaas quruxda badan oo noqday maanta ma sha Allah wallahi wax la xusubay tahay ma ahan wax la isfaraay ma ahan because xoriyada waa wax shay aad u muhiim ah ina xor tahay wax la iska helo ma aha ma fahantay gumeysiga lagu sheegay ama in xornimada laga qaado daqiiqada xataa fadhiisa meel in lagu dhaho ma ogolid adoo xor ahayn waxaasna waxa keenaya qofka inuu xor ahaado oo dhaqaaq sameeyo imagine adoo hal qof aanacay ina kor laga haysto lagu maamulo ka waran wadan dhan country dhan oo intaas oo milyan oo qof ku nooshahay hadii la dhaho gumeysiga ku jiraan dada kor ka haysto dhibkeeda leedahay ilaaha naga soo bixiyo alxamdulillah taas ilaaha naga soo bixi laakiin hal mid ah hadan ilaahay ka baryeena maanta kale waxa waaye ma sha Allah maalin kasta waa ina ilaahay barin laakiin maanta waa maalinta xoriyada qaadanay marka xor waan nahnay laakiin waxa fiicneed ina anaga isfahanno maadaama aan nahnay dad hal af ku hadlo dad oo maxaa dhihi jiray qowmiyad dhan oo hal af ku hadasho waxa u maleynaa adduunka anaga bisaa ka jirno inay tahay adeena soo raacaan wax yaraan soo raac because Soomaali meel kasta joogto waqooyi koonfur galbeed meel kasta joogto hal luqad isticmaala ma sha Allah hal lahjada ku hadalna saasay taa waxa fiicneed ina isfahanno ina ismaqalno wadankeena aan nabad u horseedno ma ahayn ina maxaa dhihi jiray qarax iyo balaayo iyo anaga is adeegsan anaga cadow isku noqono insha Allah waxa u maleynaa taas inay caaw ku eg tahay hadadaan ma sha Allah waa soo bedeleena sanadahan u dambeeyay aad sidoo hore waa ka soo fiicnaanayna aniga halkaas meeshaas ka dhex muuqda calankeyga wata asxaabay marka sanadahan soo socdo waxaa rajeynayaa in saan ka si fiican noqono wadadii waa saaranahay ina hore u socono meel kasta joogtiin walaalihi aan jeclahay waxaan idin leeyahay nabad iyo nolol igu waara inta xanuunsan Allah caafiyo inta la heystaa Allah ka bixiyo
haddaba kaasahay waawda maanta waa aada u faraxsan amazing waay mafahante waxaan leeyahay asxaabteyda inta i jecel dhammaantiin waa idiin mahadcelinaya please hadaa janaalka adiga ku cusubta waxaa sameynaysaa subscribe like comment share commentiga wax kastaa jeceshahay commentiga nagu soo weydiin kartaa like-ta hanaga ilaawina intii hore noola joogi jirta waa mahadsantihiin maasha allah waxaa waa hadda faanoola fara kama qodin maqli jirteen faanoola fara kama qodnee mareysaa bahasha haddana waa baxeynaa qolka fadhiga isa soo hagaaji isuu kusoo baxo iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabe waa kaasa caawa waxaa ku dhaa guriga dhan calnaa wada qaatay saanaa ka dhigay qolki fadhigane yaa waa kaasaa guriga saanaa usoo hagaajiya insha allah saas usoo habeeyey carada dhan maasha allah isla arki doonaa wixii damboo soo harane waa kaasaa saasa ugu talagalnay fahanteen waa kaas keeg yaraa ugu talagala first June meeshaas muujeedaa masbaliiriisaya dhac kasiis dhac u bixina waa kaasa deg first June cake meeshaas qaxwadeena noo taal hidiye dhaqankeena buskudkeena xalwada meeshaas noo yaalo maasha allah waxaa waaye dabaaldeg iyo farxad iyo reen aan ku jirnaa reen marka insha allah ilaahay waxaan ku dhahay sanadkan sanadkiisa nabad waarto barwaaqo waarto xornimo waarto guul waarto inteena xabsiyada ku jirto inteena isbitaalada ku jirto inteena xanuunsan inteena meel ku go'doonsan ilaahay maxaa la dhihi jiray farad qeyr qabaa u furo anagana dee caafimaadka allah nagu wado cimri dheer cibaadisan maxaa la dhihi jiraa isku duceyna meel kastaa joogna soomaali weyn waa hee mar labaad iyo caradii oo wada saas ah marka asxaabtan waa kuwana insha allah isla hadli doontiin familigayga waa kasa first June meesha sirta u bixina waa la cazuum calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda aan jeclaa janaalkeyga ku xiran soo dhawaada meel kasta adduunka joogtiin hadda waa kana fadhigeeni hadda waxaad soo fiirsateen guriisa waa hagaajiyey fadhigiisa kadhig haddana waa kana dabaaldeg yaraa aan sameyneyne aada u faraxsanaa because xorriyadda ninkii yaqaano oo maxaa la dhihi jiray ama gumeysi arkay ama wadan shisheeye arkay cunsurnimo xitaa yaqaano aada u faraxsanaa caawa maxamed soo dhow brother waan dhowahay waa salaamintiin asxaabta soo dhawaada caawa waxaan u dabaaldegaynaa xorriyadda Soomaaliya Independence Day kowdii Luulyo maalinkii xorriyadda aan ka qaadanay gumeystihii Talyaaniga iyo Ingiriiska labadaba labadeeni gobol ee Soomaaliya marka jamhuuriyadda Soomaaliya isku dhigi jiray haddana waqooyi koonfurtuna ay midoobeen markaas ayaan u dabaaldegaynaa caawa waxaan leenahay happy Independence Day our people waxaan leenahay ku ciid wanaagsan sanadkan ha ahaado sanad farxad iyo reyn iyo xorriyad saa'ida insha allah aan helno ilaahay colaadaha iyo dhibaatada iyo khilaafka iyo isfaham weyn aan naga qaado ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed meel kastoo ay joogto gudaha iyo dibadda labadaba waxaan u rajaynaynaa caafimaad ciid wanaagsan sanad wanaagsan kowda Luulyo waxaan ugu hambaleynaynaa dadka dhammaan in la iscafiyo wadanka horumarkiisa iyo walaalnimada iyo wada dhalashadana laga shaqeeyo Soomaalida dhammaanteed waa walaalo wada dhasheen laakiin intana kala geynayso inaan garano wadankan aan ka shaqeyno intaas ayaan insha allah waxaan ugu hambaleynayaa ummadda Soomaaliyeed hambaliyo mar labaad waa saas keegeena ha arkaan asxaabta kusoo dhaweeyay keeg qurux badan aan habeysane oo first July calankeena waxa dhan ku sawiriyay maasha allah waxaa waaye ilaahay inta xanuunsan inta maxaa la dhihi jiray oo ku jirto xabsiyada inta isbitaalada ku jirto inta xorriyad darada haysato inta gobolada kale ku cadiban ilaahay kuliya Soomaaliya nabad ha nooga dhigo maxaa la dhihi jiray waa ku kaasahay happy Independence Day
happy independence day keegii kowda luuliyana waa kan waa jaranaya haye fadhiya anaa noo jiraay soo ma كم واجرنا؟ أنا جاهز. هو مركز وجرايا. هذه كانت جرنا يسها. أنا نكيل جرنا يا. ديار. هذا حمادي بياده. ماشي سيرت مزبليريس يا دايم فانت. المو عن اسكي جعلين مقطع أبو فلادي. وحاوي. واو. بالنسبة لهذينا بالنسبة لهذينا بالكالي يمني وين بالنسبة لأصحابتي محلاتها دع تعميله قاعمين مع لابا قاعمين مع لابا ها بالنسبة للكيك كيك واو ثانك يو عنهم واو كيكي نبضة عيان جرنا عادي waxaan jarnay waa keegii nabadda fahant kowda luuliya iyo keegii nabadda ayaan jarnay insha Allah nabad iyo barwaaqo ayaan Soomaaliya u rajaynaynaa wadankeena waxaan rabnaa inuu noqdo meesha adduunyada ugu nabadda iyo bilicda iyo wanaagga badan waxaan rabnaa meesha ugu cadaaladda iyo amniga badan inuu noqdo waxaan rabnaa meelaha ugu quruxda badan ee loo soo daawasho inuu noqdo waxaan rabnaa meelaha ugu dalxiiska badan inuu noqdo waxaan rabnaa meelaha institutionada iyo maxaa la hay'adaha dawladdu ay ka dhisan yihiin meelaha ugu horumarsan inuu noqdo meelaha dhinaca cadaaladda dhinaca siyaasadda dhinaca bulshada rayidka dhinaca maxaa la hayaa xorriyadda iyo xorriyatul qowlka laga qadariyo iyo meelaha ugu horumarsan yahay adduunka inuu noqdaan rabnaa laakiin intan hortaagan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qabto asaga naga qaban kare happy independent day one love one love